kulan wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba meel walbood joogtaan iyo si walba maqalkeena iyo muuqaalkeenaba idiin soo gaadhayo ku soo dhowaada warkeena qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid a dagaallo xooggan oo ka socdo dalka Itoobiya ayaa lagu soo warramayaa in ay si toosa haatan uga socdaan deegaanka Oromada. waxaa la sheegayaa ciidamadii aadka u tirada badnaa ee maalmihii ugu dambeysay baa dowladda federaalka Itoobiya ay ku soo daabuleysay gudaha deegaanka Oromiya inay haatan si toos ah u shaqo bilaabeen, waxaana xilligan dagaallo xooggan ay ka socdaan gobolka Guji. waxay sidoo kaleeto ay sheegeen laamaha ammaanka ee deegaanka Oromiya in dagaaladu ilaa iyo xilligii ay ciidamada dowladda federaalka Itoobiya ay amarka ku bixiyeen in lala dagaalamo kooxaha argagixisada ka dagaalamaya gudaha Oromiya ay si toos ah ay dagaaladu haatan uga socdaan. dhanka kalena iska horimaad ayaa ka dhacay nawaaxiga magaalooyinka Pati iyo sidoo kale Jaladuma, waxaana la sheegayaa in iska horimaadkani uu u dhexeeyo jabhadda Fano oo ka helayso taageero laxaad leh jabhadaha ka dagaalama gudaha Canfarta iyo sidoo kaleeto shacabka deegaanka Oromada. waxaa deegaamadani inta badan uu dagaaladu ay ku soo laalaabanayeen isbuucyadii ugu dambeysayba, iyadoo dhanka kalena dowladda maamulka deegaanka Axmaarada lagu eedeynayo inay dabada ka riixayso ama ay u fududeynayso inay labada shacab halkaasi ay dagaalo ku dhex maraan. dhanka kalena ururka TPLF ayaa la sheegayaa iyaguna inay weeraro ay laxaad leh ay ku simeen deegaamada Canfarta ee xuduudda deegaanka Tigreega dhaca iyo sidoo kaleeto deegaanka Axmaarada xuduudda ay wadaagaan labada deegaan. dhanka kalena waxaa lagu soo warramayaa deegaanka Soomaalida oo maalmihii ugu dambeysayba laga deerinayay in ay abaar u dhintaan dadku in ay haatan ka da'een roobab lagu diirsado. waxaan halkan inagula wadaagi doonaa meelaha sida weyn roobabku ay uga da'een iyo sidoo kaleeto farxadda dadka ay muujinayaan bishan Ramadaan ee barakaysan oo dhibaato weyn ay dadku soo wajahday haatan Ilaahay uu uga gargaaray. balse hadday tahay markaadii kugu horeysay barteena YouTube-ka aad soo booqato, waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe noo saarto. haddii aad horey noola joogtayna sii share garee barnaamijka oo gaadsii asxaabtaada kaleete ee wanaagsan sida adigoo kale. aad iyo aad ba mahadsantihiin. dagaallo xooggan ayaa ka socda gudaha deegaanka Axmaarada andhehe deegaanka Oromada. waxaan ogeyn ururka OWL inay maalmihii ugu dambeysayba ay isku fidinayeen deegaamada gobolka Oromiya oon ogeyn intiisa badanba inay gacanta ay ku dhigeen. dhanka kalena dowladda federaalka Itoobiya oon ogeyn isbuucyadii ugu dambeysay in iyaguna halkaasi ciidamo ay ku daabulayeen, ciidamadaasi oo ka kala imaaday dhammaanba dhulweynaha dalka Itoobiya iyo sidoo kaleeto ciidamada sida gaarka u tababaran ay ka mid yihiin ciidamada Liyu Poliska ee deegaanka Soomaalida. waxaana la sheegayaa in dagaaladu ay haatan si weyn ay uga socdaan gudaha deegaanka Oromiya, waxaana la soo sheegayaa in khasaarada labada dhinacba ay badatay. walow dowladda federaalka Itoobiya iyadu ay sheegtay inay kooxahani soo afjari doonto, ayna tahay markii ugu dambeysay ee la dhihi lahaa kooxdan waa ay jiri jirtay. waxaan ogeyn isbuucyadii la soo dhaafay in dowladda federaalka Itoobiya ay safarro ku kala bixinaysay dalalka dariska la oo ay ka mid tahay dalka Kenya, kuwaasi oo la sheegay inay dowladda federaalka Itoobiya ay ka codsanaysay sidii ay taageero uga heli lahayd wadamada dariska la. waxaan ogeyn in taliyaha dalka Itoobiya iyo sidoo kale taliyaha dalka Kenya ugu sarreeya ciidamada dalkani ay kulan ku yeesheen magaalada Nairobi, halkaasi oo ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa ammaanka iyo sidoo kaleeto isku xidhnaanta labada shacab iyo sidii ayadana loo dardargelin lahaa furitaanka labada xuduud ee wadanka Itoobiya kan Kenya oo xidhnaa tan iyo intii dagaalada dalka Itoobiya ay halkaasi ka qarxeen. waxaa sidoo kaleeto dalka Kenya ay ku codsaday taliyaha ciidamada dalka Itoobiya in ay kala qayb qaataan la dagaalanka ururkan OWL oo dowladda federaalka Itoobiya ay u aqoonsatay inuu yahay urur argagixiso. waxaa ciidamada deegaanka Soomaalida ku sugan gudaha Oromiya ay sheegeen ayaguna in ay guulo waaweyn ka gaadheen 24 saac oo u dambeysay dagaaladii halkaasi ka socday. dhanka kalena waxaa la sheegayaa ayagana in deegaanka Oromiya ay haatan shacabkii abaabul weyn la geliyay kadib markii
dagaaladu ay si toosa uga bilaabeen gudaha deegaanka Oromia, halkaasina shacabka laga codsaday in ay taageeraan dowladda federaalka Ethiopia sifo looga kor qaado ururadani dhibaatada weyn ku hayo halkaasi la sheegay inay dadkii baabiinayaan hantidooda iyo sidoo kaleeto jiritaankooda. walow dowladda federaalka Ethiopia ayadu lagu eedeynayo in ayada laftirkeeda ay shacabka dhibaataynayso oo qofkii ay ugu tuhunto ama tuhun uu ka soo galo inuu xidhiidh la leeyahay ururada ka dagaalamaya dalka Ethiopia ay ayagu gebi ahaanba xabsiga dhigayaan ama si uun loo ciqaabayo. arrintani shacabku waa ay ka dhiidhiyeen, waxaanan ogeyn inay shacabku haatan ay u diyaarsan yihiin la dagaalanka ururadan ku soo duulay ee dagaalada ka wada gudaha deegaamada kala duwan ee dalka Ethiopia. ururka OLA ayaa isku ballaarinaya dhammaanba dalweynaha dalka Ethiopia, waxayna haatan dagaaladu intooda badan ay ka socdaan xuduudda deegaanka Soomaalida iyo tan Oromada oo laga baqayaba dagaalku in uu gudaha u soo galo deegaanka Soomaalida. waxaanan ogeyn in ciidamadii deegaanka Soomaalida la geeyay kuwa laba jubaarkooda ay haatan ku sugan yihiin sugitaanka xuduudda labada deegaan sifo ay kooxahani ugu soo duulin deegaanka Soomaalida. waxaana haatan la sheegayaa sidii lagu soo afjari lahaa ama lagu baabiin lahaa ururkani inay haatan wadadeeda ay hayso dowladda federaalka Ethiopia. dhanka kalena isku horimaad ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalooyinka Pahati iyo sidoo kale Jalamuduga oo dhaca xuduudda deegaanka Oromada iyo kan Axmaarada, waxaana halkaasi iskaga horimaaday shacabka deegaanka Oromada iyo sidoo kale jabhadda Fano oo taageero ka helayso jabhadda ka dagaalanto gudaha deegaanka Canfarta. waxaana la sheegayaa halkaasi in shacabka deegaanka Oromada ay kala kulmeen jab iyo sidoo kaleeto baabiin ay kula kaceen kooxdan Fano oo maalmihii ugu dambeysayba tababar lixaad ka helaysay deegaanka ama dalka Eritrea, kaasi oo ay sheegeen mas'uuliyiinta ugu sarsareysa dalka Eritrea in ay taageero weyn u hayaan deegaanka Axmaarada maamulkiisa iyo sidoo kale jabhadda Fano oo ay usoo tababareen in ka badan 10,000 oo askari. haatan su'aasha taala ayaa waxay tahay Eritrea ma waxay usoo tababartay ururkani inay baabiyaan deegaanka ama shacabka deegaanka Oromada oo markasta ay dagaalo kula kacaan Fano. Oromada ayaa haatan waxaa ka socdo mashquul iyo guux weyn oo ka dhashay ururkani Fano ee mar walba ku soo duulayo gudaha deegaanka Oromia, halkaasi oo ay ka geysanayaan dhibaatooyin kala duwan. waxaan ogeyn isbuucii la soo dhaafay inay la laayay ciidamo aad u tiro badan oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Ethiopia, markii dambena ay ururka Fano ku lug yeesheen dilkii iyo sidoo kaleeto baabiintii ciidamadii federaalka Ethiopia ee lagu baabiyey gudaha labada deegaan oo deegaanka Oromia iyo sidoo kaleeto deegaankan Axmaarada xuduudda u dhaxaysa. ugu dambeyntiina deegaanka Soomaalida oo aan ogeyn in abaaro xooggan ay hareeyeen bilooyinkii ugu dambeysayna ay dadku cabasho weyn ay ka muujinayeen dhibaatada halkaasi ka jirtay iyo sidoo kale haraadkii ka dhacay deegaamada uu ka kooban yahay deegaanka Soomaalida, ayaa haatan waxaa la sheegayaa in roobab lagu diirsaday ay ka dhaceen deegaanka Soomaalida intiisa badan. waxaana la sheegayaa in roobabkani aysan wax dhibaato aynan u geysanin xoolihii ku dhaqnaa deegaamadaasi, balse ay noqdeen mid lagu diirsado. waxaa jirtay shalayto in kilibyo laga soo duubay gobolka Afdheer oo ahaa dadku in ay u dhammaanayaan oon ay haatan ayagoo faraxsan kilibyo kuwii kale ka duwan oo farxad muujinayo ay ku soo gudbiyeen baraha kala duwan ee social mediaha. hase haatee inaguna waxaa laynooga fadhiyaa in farxaddaasi aan la qaybsanno walaalaheena dhibaatadu ay ku haysatay halkaasi abaaruhu. inteena badan inaga magaalooyin ayaan joognaa oo ma dareensanin dhibaatadu meesha ay marayso, balse ayagu haatan waxay ahaayeen kuwo la daala dhacayo yacni oonka iyo sidoo kaleeto rafaadka ka soo gaadhayo biyo la'aanta. si kastaba haatee haatan waa ay qaboobeen oo roobab waaweyn oo ay ku dirsadeen ayaa intooda badan u daayay. marka inagu waxaa laynooga fadhiyaa inaan u ducayno inta soo hadhay ee haatan roob uusan u diin, inta uu daayina ilaahay ha u ziyaadiyo ayaanu leenahay. daawadayaal war waxaan daliyo dibadba idinka hayay waa naga intaan warka xiga aan ku kulmi doonana waxay naga tegayaa sidaas iyo ammaano Allah.